waan ku salaamay saaxiib. Haddii aad igu tiraahdo waan ku hungoobay saaxiibaday, waxaan ku leeyahay saaxiibada laguma hungoobo. Ee dhibta jirta waa inaad magaca saaxiib igu yeedhisay qof kastoo ay aqoongoodii kala dhaxayso. goor iyo goob walba dadku waa dadkii uun saaxiib. miyaanad akhriyin saxiixul bukhaariga oo aadan ka baran sida uu nebigu u yidhi dadku waa sidii kadin geel ah oo ay adag tahay inaad ka weydo mid haldoor ah. reer miyiga ayaa horey noola taliyey markii ay yidhaahdeen dadka aad aqoonta guud isku leedihiin badi saaxiibadana yaree. innaga ayaa wax ka qaadan weynay. waro sidii aad isku fidaydin lahayd saaxiib. in badan oo dadka ka mid ahi waa rar saayid ah oo culaysun kugu biirinaya waro sida wax loo xusho inta xulka ah mido oo isku xeer. dadka waxa kala hufoo kala haadiye mowqifyada iyo dhacdooyinka. qofka gacantiisa kaaga taraylintu lama mid aha ka kugu yidhi ha ooyin. ka ku yimid xilli aad u niyad xumayd inta uu gacanta si xooggan kuu qabtay kugu yidhi aniga ayaa kula jira lama mid aha ka kugu yidhi haddii aad wax u baahato aniga ii sheeg. qofka marka uu xaalkaaga ku weydiiyo aad u sheegto inaad fiican tahay ka fahmo dhawaaqa codkaaga iyo murugta indhahaaga inaanad fiicnayni. lama mid aha qofka kaa rumaysta u maleeya inaad fiican tahay. nabaadiina saaxiib.